ayadoo dadkii runtii ay baxeen dadkii badankooda ay yani ku dul carareen ayaan yarkaasi suurtagal ii noqon weysay damiirkayguna uu siin waayay inaan qof Soomaaliyeed runtii dareenkeeda ilahayd runtii iyo xanuunka sheekayn karama yani yarkaas markaan ku soo laabtay dadka hadda waxaan u malaynayaa inay isleeyihiin saaxiibay ahaayeen ama walaalay ahaayeen laakiin yarkaas ma aqaanin waa jeclaalahay maanta inaan arko qof Soomaaliyeed oo mas'uula ama madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ama Prime Ministerka Xamse Cabdi Barre sidoo kale dadka u sareeyaan hay'adaha ammaanka sida Sheekh Cabdullaahi Maxamed Sanbalolshi waan rabi lahaa inaan arko dareenkooda waxay ka qabaan waxaan iyo feeling ay ka dareemayaan xaaladda noocan oo kale markay dhacdo aniga oo checkpoint mari karin haddaan gaari wato wax walba ee dhaca aan checkpoint mari karin iyadoo يعني حتى أنا كل جيجا أنا ما لا قارن أنا مركرين إنه بحد نوع عاصة قار اللي وحسد أما سحمد أنت أصلك يعني حمول أنت أصلك قارح حمبارس إنه سوق المش هو استراتيجية سنة ومهم سنة ضدك يجوجين ومهم سنة dadaal badan oo nafhurnimo leh ayay sameeyeen koox dhalinyaro ah oo habeenkii uu halkan oo xeebta leeda uu ka dhacay qaraxa laakiin shaqada ay qabanayeen qeyr Allah ku siiyo oo dadku ay ku amaaneen waxa ay ku kala duwaneed dareenka mid walba ay xambaarsan tahay Cabdiraxmaan waa wiil dhalinyaro Cabdiraxmaan سيتا ما شاء الله الحمد لله وكاga mahad celinaa runtii dadalka asan umada Soomaaliyeed Cabdiraxmaan dadka halista ay ka soo cararayeen iyo qaraxyadii ayuu u daba maray waxa muuqatay rag waaweyn oo soo cararay naftooda la soo cararaya rasaas badan maadaama ay dhacaysay isagu waa daba maray waajil bajabsaday wuxuu qaaday qof markaas aan isagu socon karin oo dhaawaca taasa marka waxay keentay in uu noqdo qofka ugu saameynta badan ee muuqaalkiisa aad loo hadalay Cabdiraxmaan waa ku faraxsanahay inaan kula kulmo waliba meeshii ay dhacdadu ka dhacday iyo goobtii aad ka badbaadinaysay dadka soo dhow waa dhawahay wariye Sofeste iyo dhamaan telefishinka Shabeelle TV iyo dhamaan shaqaalaha aad idin salaama waan dhawahay runtii aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan ka soo muuqdo telefishinka Shabeelle mar kale mar ka sii horeysay oo codkayga laga baahiyay maanta mar kale waxaan nasiib u yeeshay inaan telefishinka ka soo muuqdo marka saaxiibow Sofestow arrin aad iyo aad looga naxo dadka Soomaaliyeedna ay aad iyo aad uga warhayaan baa ka dhacday habeenkii sabtiga ay soo galeysay maalin jimco ay ahayd habeen sabti soo galeysay jimco baxaysay halkaan aad taaganahay oo xeebta liiday halkaan oo ahayd runtii habeen aad iyo aad u saxmad badan oo dadka Soomaaliyeedna ay wada ogyihiin oo habeen jimco ahayd dadku maalintaas ay fasax ku jireen damaashaad ay ku jireen ay halkaan u soo doonteen jawi iyo inay farxad ku qaataan runtii habeenkaas abaaro 10 habeenimo ama 4 saac BMC dadka Soomaaliyeed u yaqaanaan ayaa hotelkan la yiraahdo Beachview waxa ka dhacay runtii musiibo aad iyo aad u weyn inkastoo aaminsanahay in ayadaas xataa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga kala yareeyay Ilaahayna qaybtii ugu weyneed bilaahi uu naga qabtay runtii mid naftii halliga oo ka tirsan khawaarijta al-shabaab ayaa wuxuu soo weeraray qarax isku soo xiray wuxuu ku soo weeraray dad masaakiina ee xeebtan يعني ست ربال وجوب ضد سحمد بدن هبين جمعتها أيو دحضود انتو سو استاغي أيو اسكو دح قرحي رنتي أساقو oo doonayay inuu dad masaakiina aan waxba ka galab sanin naftooda haligo runtii dad aad iyo aad u badan una naftooda haligay dadna uu dhaawacay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu bariyaa dadkii dhaawacmay Ilaahay caafiyo dadkii dhintana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caafiyo ee sheeg naxariistiisa janno u siiyo runtii habeenkaas waxaan ku jiray dadka maqaaxida ku jiray waliba qaraxu aad iyo aad meel ugu dhow uu ka dhacay hotelka qayb cidii taqaanay iyo kala cidii taqaanay iyo cidaan aqooninba gudaha hool ku yaalan fadhiyay joogto markuu dhacday koobaad waxaan dareemay inay jirto runtii khatar aad weyn oo nagu soo aad iyo aad noogu dhow markaas go'aan waxaan ku qaatay inaan u baxo dhanka jaanibka maqaaxida la yiraahdo seafood waxa dhacday markaan maqaaxida oo dhankeeda u boodayeen daaqada ka baxay aniga xogaa jugba waxa ay gaartay jilibkan bidixda sidoo kale dhabarkan waxa ay iga gaareen in ka soonan daqiiqadahaas ama xilligaas lagu jiro aanan dareemin jugta dhabarka gudaha markaan galnay runtii waxaan gudaha seafood kala kulmay handana qisooyin aad iyo aad looga naxo murugo badan oo ku taalo aad iyo aad u badan
dad masaakiina birmageyda caruur waayeelo iyo hooyooyin dhalinyaro runtii dhulka daadsan qaarkoodna xataa aan yacni la sawiro karin xataa xaaladooda runtii waxaan isku dayay inaan dadkaas dhulka jiifo qaarkood qaado oo aan gudaha geeyo waxaa dhacday inaan ku guulaysto oo aan gabdho ka mid a inaan wax yar aan gidaarka u sikiyey kadibna markii gudihii ay raggii soo galeen ayadoo xabadda iyo bambaanada ay ka dhacayso hoteelka ayaa waxaa dhacday inaan bal soo qiimeeyey laamiga dhanka saydka hoteelka Lido Seafood halkaas markaan tegey yar ka mid a dhalinyarada waardiyaha ka hotel Beach View oo maqaaxida lasoo weeraray ayaa meesha ku dhiig baxayay marka anigoo raba intaan shaatigiisa ka furay lugta meeshii dhaawaca ka gaaray duubaya ayaa baawurkan dawladdu ay qarxin doonto ayaa wuxuu ka soo dhaqaaqay meel hoteelkan Birla Beach wax yarna iyo hoteelka la qarxiyay oo Beach View inta u dhaxaysa asagoo si aad iyo aad yacni xawaarihiis ay u dhiman yacni u soo dhaqaaqay yacni si tartiib u socdo baawurkii xabada baa lagu shubay joog ayadoo la dhahay wuu diiday marka inuusan joogsanin marka arkay ciidamada dawladda inay xabadeynayaan aniga waxaan go'aansaday inaan khatar kale meeshan ka soo socotaan dareemay meeshii gudaha ku sii cararay gudaha markaan tagnay muddo badan baan gudaha ku go'doonsanayn gudaha markaan yacni muddo ku jirnay baa waxaa dhacday in ciidamada dawladda qaar ka mid a ciidankan booliiska la yidhaahdo qaybta haram cadda qaybta xeebta soo mareen kadib dadka waxaa loo sheegay inay xeebta u baxaan ayadoo xabadduna si aad iyo aad u dhacaysa runtii dadkii way baxeen aniga laba gabdhood oo runtii gabdho Soomaaliyeed oo walaalahay ay ila joogeen oo diideen inay iga tagaanba kadibna waxaa dhacday inay dadkii wada baxaan marka dadkii markay baxayeen yarkaan aan qaadi doono waxaan ka arkay meel siliga gadaashiisa asaga oo gacanta nuuxinaya bas inta kale aan ka nuuxsanayn intaan gudaha ku jiray waxaan go'aansaday marka wiilkaas inaan ii sheeg aan go'aan ku qaatay yarkaas inaan badbaadiyo intii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iga karansiyo ama awoodeydaana aan yarkaas ula tago ayadoo dadkii runtii ay baxeen dadkii badankooda ay yacni ku dul carareen ayaan yarkaas suurtagal ii noqon weysay damiirkayguna uu siin waayey inaan qof Soomaaliyeed runtii dareenkeeda ay lahayd runtii iyo xanuunka sheekeyn karama yacni yarkaas markaan ku soo laabtay dadka hadda waxaan u malaynayaa inay isleeyihiin saaxiibay ahaayeen ama walaalay ahaayeen laakiin yarkaas ma aqaanin heybtiisana Soomaali cid uu ka ahay maan aqoonin waa ku soo cararay runtii ayadoo xabadda dhacaysa ay aad iyo aad xadaaf u tahay xabaddu dhinacadan ay ku dhacayso bacaadka xabadda ay ku dhacaan waxaan rabaa inaan gadaal baan dardaarankay ka geysan doonaa yarkan waa qaaday waa ii suurta gashay inaan ku soo laabto oon dusha saarto oon qaado oon cararo meel Ilaahay subxaanahu wa tacaala uun kuleetime loogu gurman karana aan markaas aan geey waan jeclaalahay codku inuu furnaayo markaas ama CCTV kamerada inay cod laga heli karo runtii aad baa u qeylinayo waxaan dhahay xabadahan iga daayay dhahay laakiin cid noo joojisa ma jirin xabadahana ciidanka dawladda ridaayeen nimankan khawaarijta ah soo galeen hoteelkan ay ku ekaayeen hoteelkan gidaar ay ku jireen ciidanka dawladda ku celinayeen xabadaha liida ka xeebta ka dhacay aniga dhinacadeeda ku dhacay runtii aan sakin kasta aan aaminsanay in aanay xabada u dhici karto xabadahaas ciidanka dawladda ridaayeen qayladeeda iyo cabashada aan leeyahay xabadda iga daayane runtii dhig jalq maysa u siin alxamdulilaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahadle ilaahay baana igu garab galay inaan yarkaasi intaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yacni awooddiisa ahayd inaan meel ii sheeg gabaad u noqon karta ama isbitaal loola cararin karo aan geey markii noo soo feestow runtii meeshaas wax laga sheekayn karo habeenkaasi kamay dhicin dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Soomaali cidna uma maqna runtii calna uma qodna waxyaabaha musiibada ah magaaladan ka dhacayana waxaan u malaynayaa inay tahay ii sheeg wax musiibo rabbaani ah ummadan loo soo diray waa jeclaalahay maanta inaan arko qof Soomaaliyeed oo mas'uula ama madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ama Prime Ministerka Xamse Cabdi Barre sidoo kale dadka u sareeyaan hay'adaha ammaanka sida ii sheeg Cabdullaahi Maxamed Sanbalolshi waa rabi lahaa inaan arko dareenkooda waxay ka qabaan waxaan iyo feeling ay ka dareemayaan xaaladda noocan oo kale markay dhacdo aniga oo aan checkpoint mari karin haddaan gaari wato wax walba ee dhaca aan checkpoint mari karin iyadoo yacni si hataa anoo keligeyga aan meelaha qaar aan mari karin
inuu baaxad nuucaasa gaari la eg wax sida ama saxmad intaas la eg yani xamuul intaas la eg qaraxa gaari xambaarsan inuu soo gala meeshii ugu istaraatiijiyasaneed ugu muhiimsaneed dadku ay joogeen ugu muhiimsaneed magaaladan ganacsi hadday noqoto iyo hadday goob dalxiis noqotaba inuu gaari noocaas u imaado runtii waa wax runtii is xisaabtan u baahan marka dowladda Soomaaliya ayadaa laga rabaa kulliito ananka dadkii magaaladan dhalinyarada ahaa magaaladan lahaay jooga meelna aan ka aadi karin aan ahnay waxaan rabnaa inaan eednalo kaga dhigin maxaa loo tahriibay iyo maxaa saas u dhacay musiibadan oo dhacayso dadka ayagoon waxba camalan aan haynin inay musiibo nuucaan oo kala hadana maalin walba ay ku dhacdo aad wax u nahay marka waa maasidin shabeelle waan kaga mahadcelinayaa runtii ii sheeg saa warbixinteena u diyaarsay marka aad maasidin thank you so much